السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسمو يدله كسو دوادا يوتيوب channel كيغا Bake with Asumi. channel ka dadku cusub tahay oo tahay markii goorta soo booqatay fadlan subscribe. insha Allah maanta waxaan idin la wadaagayaa giant cookie. yaa waxbad cookie waxa inta leegi cookie inta leeg ban maanta sameeynaa birthday-yaashii xafladaha iyo xasbal sameystaa marka maanta waa inankayga Cabdalla birthday-giisii 4 years buu maanta noqday marka Cabdalla aanu sameynay idinkana waxaan jeclaaday in idin la wadaago sidoo sameeyay soo dhawaada insha Allah waxaan rajeynaa inaad ka heli doontaan fiidiyoga dad ka heshay like saar and wakas. This is the best cookie ever. With ice cream on top. So nice. Look at it. It's really nice. You would love it. alaabtii aan cookie-ga ka sameeyay halkan aan ku soo diyaarsaday waa easy de markaad waxa aad wada diyaarsatid meeshan soo dirigatid soo waxaan sameynayaa halka waxa yaala 200 gram oo ah milk chocolate waan jarjaray hadii kale waxaad isticmaali kartaa chocolate chip halkan waxa igu jira 150 gram oo daqiiqa waa plain flour daqiiqani waxba ku jirin halkan waxa yaala 115 gram oo ah butter waa bila milix halkan waxa yaala 130 gram oo light brown sugar halkan waxa igu jira mulqaacad barkeedo baking powder iyo mulqaacad barka afar loo qayb baking soda waan isku soo darsaday mulqaacad barkeedo milixa halkan waxa ay taala mulqaacad vanilla sea salt halkan ay taala milixdaas intaasan ka sameeynaya wax badan uma baahnid gacantan ku sameeynaa mashiin kuma sameynayo marka mulqaacad waxaad u baahantahay jabacaad okay marka hore waxaan sameeynaa butterka waan dhalaalinayaa waxaan isticmaalayaa tinkan aan ku dubayaa waa 8 inch marka dabkana isagan ku saaraya waxaan rabaa inaan dhalaaliyo waxaan dhalaalinayaa ilaa intuu brown ka noqonayo dabkan saaraya dab aan xoog u dalaacnayn marka waan dhalaalinayaa marka dhalaaliyo waan idin tusi doonaa insha Allah markaasaan ku darsanayaa sonkorta iyo beedka xabad beedan u baahanahay waan soo dhalaaliyay butterkii si fiican baan u dhalaaliyay ilaa intuu saas brown uga noqonayay waa butterkii un baa saas brown u noqday waxaan sameynayaa boolkan baan ku shubanayaa tinkan maadaama hadhow ku dubayo waxaan rabaa un hadhow inuu isaga iyo butter le aan ku dubto iyada inaad weel kale hadhow haddana iska uskagaysid marka hadduu tinkaaga yahay mid dabka la saari karo isagun baad ku dhalaalin kartaa butterku markuu ku yar qaboobo waxaad ku darsanaysaa sonkortii brown sugarka waad ku qooshaysaa xoog lama sii qooshay just wax la rabo in la isdhex geliyo markaan saas ku dhex gelino xabada beedan ku darayaa xabada beedan markaan ku darana waxa qalalan ma ku darsanayaa iyo chocolate chipkii xabada beedan ku darsanayaa tan ku yar qoshaya waxba si xoog uma baahnayn loo sii qoosho cookie-ga just waa inaad isdhex gelisid un baad u baahan tahay hadda waxaan ku darsanayaa waxa qalalan oo dhan daqiiqdii baking powderkii iyo baking sodadii iyo milixdii chocolate chipkana half baan ku darsanayaa halfka kale hadhow dushan kaga daray marka halfkaasan ku sii qooshiya de waa easy sidaas yar bad u qooshaysaa markiiba wax sii ool maaha waqti badan ka qaadanaya maaha marka taa u qooshtid saas ku wada dhex gelisid tinkiisii baad ku shubanaysaa aad ku dubaysay vanilladiina waan ku daray mulqaacad yar vanilla baa ku jirta ku daraysaa marka taa isku wada qooshtid tinkaagi ayaad ku ridaysaa de tinkana uma baahna butter because already butterkan ku soo dhalaalinay marka isagu ma toos ugu shubeyna okay
markaad saa iskugu wada gesid inaad isku keentid ubaad u baahan tahay qoosh nin badan uma baahnaa cookiga waxaas buu ku fiican yahay cookiga in xoog loo qoshqoshiyo waxaas uma baahnaa xoogna uma sii simaysid kas cookiga wad aragtay dee uu yara kala dhaadheer yahay ilaan cookie inuu u ekaado rabnaa se waxaan sameynaynaa inaad wada gaadhsiisid bilaadhkao dhan saa markaad wada gaadhsiisid chocolate-ka intii ku harsanaa waad ku darsanaysaa adduunka dhan wada chocolate baynu ka dhigaynaa maanta yaa si hadha markuu soo baxo isagoo meel walba chocolate ku leh uu inoogu soo baxo markaad saa u samaysid chocolate-kii dusha kaga darsatid halka waxay taalaa milixda buurbuuran waa si sababta baa ii taalaa halkaas markaas in yar baan dusha kaga darayaa hadha markaad cunaysid chocolate yar iyo milix yar iyo marka waa hadda milixda aad haysatid uun waad ku darsaa wax badan uma baahnid just in yar chocolate-kii dushan kaga daray milixdii dushan kaga daray si saltkii imika ovenkan gelinaya ovenku ii kulul yahay 180 baad geynaysaa ovenka waad sii kululeysanaysaa intaanad gelin wuxuu kugu jirayaa 10 minute oo qudha wax badan uma baahna inaad dubtid 10 minute markuu ku jiro 10 ilaa 12 mirar umuu kugu jirayaa ana waa diyaar ice cream kaagaad ku dul darsanaysaa masha Allah cookie dawa kaas waa inoo diyaar ma sha Allah on ka soo saaray ovenkii wixii ugu jiray 10 mirar hadaad rabtid 12 mirar baad ku deyn kartaa markaad aragtid in xagaas ay noqotay brown waa diyaar waxaan ku darsanayaa maadaama cookie yahay maanta cookie dawa ice cream ku daraya ba ice cream ba jacayshad ku darsan kartaa but I love this one yeah muqaada ice cream aan ku darba ka dhacday marka ice cream-ka talaagada waan ka sii yara saaray barafka si uu igu yara jilco waan sii easy ugu cuni karo marka waa kaas waa ready yeah inshallah it looks so nice and it's that easy to make de masha Allah kaas chocolate kiisa suulax jooga chocolate kaaga iyo ice cream kaaga isku dar masha Allah wallahi it's the best yeah intaan cid kale ku soo gaarin markaan adigu ugu dhamaanayo wuxuu noqday buskud dhexda waxa weeyaan fudge buu noqday chocolate kiba ku dhex jira ice cream ki the best dessert wallahi de masha Allah waxaan la arag oo la maqal cookie ga yara kulul yahay isagoo yara kulul ba fiican inaad ku yara dartid ice cream ka watch this The best cookie ever with ice cream on top. So nice. Look at it. It's really nice. You would love it.